waxaan leenahay ka ilaahay janna Puntland ka kaxeeyo taana ilaahay uu gaarsiin baanu leenahay haddii aanu karaamo leenahay saasaanu leenahay ilaahay tawfiiqda teeda sanasolosi ilaahay tawfiiqda tooda sanasolosi ilaahay beena kadaabka iyo liciinka iyo jawaasiista ilaahu naga qabo ilaahay beena kadaabiinta naga qabo waxaan halka ka cadaynayaa la isugu yimi madashatan ee mudane iyo burwooyinba ay hoganayaan oo aaraahda isweydiinta laga duubayo waxaan cadaynayaa ninka la yiraahdo Dani ee hadda musharaxnimadiisa ku dhawaaqay inaanu dal iyo diin iyo dad midna daacad u ahayn inuu yahay beenaale kadaaba baan cadaynayaa inuu Puntland hog ku soo riday baan cadaynayaa waxa loo hayaa 20 dambi oo kala jaado midba mid ka xun yahay baarlamaanka waxa ka codsanayaa ninka dambiilaha ee ismadiisii iyo culimadiisii iyo eheladiisiiba ay ka dhaarteen inay dabagelin meeshii daacad ah oo dalka wax u taraysa inay dabagalaan baan baarlamaanka ka codsanaya waxaan u sheegayaa ummadda dalkeena kan macaan waa lagu soo duulay dalkeena macaan waa lagu soo duulay dalkeenu waa dal dihin waa dal nin waliba danaynaya Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo Carab intuba waa danaynaysa waxay leeyahay dalkeenu cadow badan oo kow ka yahay Dani cadow badan oo kow ka yahay Dani ninka labaadna uu yahay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo irka laga soo tuuray Soomaaliya u dhalan Soomaaliya uma dhalan irka laga soo tuuray waa jawaasiis xun weeye waa beena kadaab xun waa liciin xun waa kuwa shaydaanku rafiiqa la yahay shaydaan waa kuwa shaydaanku rafiiqa la yahay shaydaan baa rafiiq la ah waa ehlu shaydaan waxay u shaqeeyaan yahuud iyo carab bay u shaqeeyaan uma shaqeeyaan Soomaaliya waxa la rabaa in la iibiyo saa loo kala goosto war ninka Kenya oo maalin walba in rushaynaysa hoosta kaga jiro maalin walba ka soo qaadanaya warbixin iyo lacag ka soo qaadanaya Soomaaliya muxuu yahay waxba uma aha xafidullah waxa leeyahay ninka waxa soo qabtay madaxweynayaal badan baa soo maray madaxweynayaasha wax lagu diirsado ninka ma ahayn nin muujiye ma jiro waxaan u leenahay oo baarlamaanka u sheegaynaa anagu awood ma lihin oo cod ma lihin baarlamaanka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa oo naar ha ku galina ummadda Soomaalida inta faraleeg naar ha ku galina oo meeshii u dana gala oo waa aragtaan meeshii u dana nala aqli baatin oo dadka ka soo dhex baxdeen oo warka maqlaysaan oo wax kasta maqlaysaan oo Facebook-ga ku jirtaan oo dhalooyinka ku jirtaan oo waa maqlaysaan adduunka waxa ka dhacaya iyo sida ay tahay waxaan idin leeyahay oo idinku boorinaya oo idinka codsanaya naar iska ilaaliya Soomaaliya naarka ilaaliya Soomaaliya haddii uu farmaajo ka tago Soomaaliya waa dhibatay waa serious waa dhibatay waa tagtay kuma taqaawada maatay farmaajo hadduu ku soo noqdo guul iyo barwaaqo la gaaraya baarlamaanka waxa leeyahay ilaah ka baqa farmaajo noo soo saara oo shacabka iyo dalka u soo saara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya General Farmaajo ha noolaado madaxweyne Farmaajo ha noolaado aragtideedu waxa weeyaan ninka la yiraahdo Dani oo waxaan isu sharaxayaa Soomaali weyn iyo kursi weyn nin qaban karo lagu aamini karo maaha waxa la habar baa waxay xaba qaadi weyday qortasay dhigto tir xaba kala doonaya Puntland buu ka adkaan waayay ma Soomaali weyn buu ka adkaanaya anagu halka waxaanu ka taageersanay farmaajo madaxweynaha ka taageersanay isagaana xilka ku soo noqonaya haystaalinde idina wax ku dirsan maysaa Cabdilaahi Dan waxa ognahay shacabka reer Puntland si ugu khasaareen oo markii la doortay wax fiican gobolka uga qaban gaar ahaan Puntland insha Allah xaleena madaxweyne arrinkaas
iyo inaad noqoto madaxweyne Soomaaliyeed Soomaaliya xog uma qaban kartid sababtoo ah Puntland oo 6 gobol xog qaba weeydi oo miday kar weeydi boosaaso waa ognahay kaashku waa ognahay meeshu marayo shacabka reer Puntland ognahay saa u gashay moogta markuu xaleena shacabka Soomaaliyeed ninkaasina wax lii qabanayo maaha inta xamar ku hadhay oo ku hore ka taga barona sii qaato markuu xaleena madaxweyne arrinkaas xub Soomaaliya uma qaban kartid Soomaalida wax dhala nin ariga ku aaminaa geeladin iskaga dhibta marka ninkan wax u qaban kara maaha nin ay u tartami karana maaha sharaxna shacabka xamar ha ogaadeen ninkaas uu yahay xawaan qabanin haddaanu shacabka reer Puntland nahay wax noo qaban kar waayay oo kaashki waa ogtihiin oo meel kasoo xisla manay ogtihiin oo sicib bararka oo shacabka inta kale uu dumiyay markuu xaleenahay aad baan waxa dadka uga deganeen ninka doortaan wax iskaga dhiibaan waxa la yiraahdaa Soomaaliyeed baa waxa ahayd mar dagaal la haydago mar labaad dagaana istagay haddii aad maanta ka fikirto nin weyn baata inaan anagoo dhalinyaro wax ku sheegno waa wax laga fiican yahay shacabka magaalada Baran ayaa siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibtay musharaxnimada madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni uu sharaxay xilka madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya sidoo kale shacabka magaalada Baran ayaa waxay baaq u direen baarlamaanka cusub ee dalka Soomaaliya hadda ka hor ninba waxa ilaalisaa 8 caruura 8 caruuraha oo looga tagay intaan ka soo wareegin laba gelin ayaa waxa loogu yimi isagoo hal mid ka lusha todobadii kalena uu bahal cunay bal ninkaas oo looga tagay 500 oo caruur sidee yeeli lahaa inteesa lagu soo gaari lahaa madaxweynaha waxaan leeyahay inaga oo family yar ah markaan soo wada duudubo maamulkeena oo yar oo 4 xaafadood ka kooban 4 xaafadood hadda isu keeni weeday oo ka talin weeday samahoodii oo danahoodii oo kiida yacni adeeg weydid sidee uga fikri doontaa inaa maamusid 1000 qoys ama 1000 faamal adigii baa 5 qoys maamul ilaa Deni hadalkii ka hadlay oo mootay uu farmaajo uu ku burinayay ama uu yiri mootay farmaajo waa kaga soo horjeedaa farmaajo waa madaxweynihii Soomaaliya meel kasta waa laga taageerayaa waxaan leenahay noolow baan leenahay inta kadib wax badan baan anigu baraha bulshada ka hadlay oo afkaartayda aan hadlay maanta waxaan ka hadlayaa afkaar ururintii ahayd Deni iyo hadallada ka soo yeeray waxay la tahay anigu badin maayo hadalka waxaan ku mahmaahayaa wax rag loogu mahmaahmaahe habar baa oday gusweyne qabi jiray baa la yidhi ka bacdina waxa la yidhi habeenkii dambe waxay tiri kolba dhintay ay dhamaystir bay tiri horta waxaan uga goleeyahay Puntland horta Deni waa u dhamaystiray dawladda federaalkana waxay la tahay rag baa joogo ama waa u dhamaystiraya ama waa la iska dhicinayaa taayo taasaan ka leeyahay waxaan kaloo halka ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya General Farmaajo ha noolaado madaxweyne Farmaajo ha noolaado aragtideedu waxa weeyaan ninka la yiraahdo Deni oo waxaan isu sharaxayaa Soomaali weyn iyo kursi weyn nin qaban karo lagu aamini karo maaha waxa la yahay habar baa waxay xaba qaadi weyday qortasay dhigtootin xaba kala doonaya Puntland buu ka adkaan waayay ma Soomaali weyn buu ka adkaanaya anagu halka waxaan ka taageersanay farmaajo madaxweynaha ka taageersanay farmaajo weeye isaga la xilka ku soo noqonaya haystaalinde idina wax ku dirsan maysaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isagoo la weydiinayo hooyadii Puntland meel uu ka waramanaan garanayn ayuu maanta si taagan madaxweyne dalka ka noqdo ana waxaan taageersanaa dawladda shacabka reer Barameed nabad iyo nolol horta waxa la yiraahdaa Soomaaliyeed baa waxa ahayd mar dagaal la haydago mar labaad dagaana istagay midaan u sheegayo kalena waxa weeye inta shacabka ku jiro ayaa codka doonaysidna ku jira haddii aad maanta ka fikirto nin weyn baata inaan anagoo dhalinyaro wax ku sheegno waa wax laga fiican yahay nin ka weyn waxa la yiri ilgurxeed ka weyn waa laga fiican yahay habka u dhaqmaysid wadankaaga colaada inaad doorasho gashidna waa wax laga fiican yahay wax kale ka oran maayo anigu Allah ku soo hanuuniyaan kuleeyahay Cabdullaahi Deni waxa ognahay shacabka reer Puntland si ugu khasaareen oo markii la doortay wax fiican gobolka uga qaban gaar ahaan Puntland insha Allah xaleena madaxweyne arrinkaas iyo inaad noqoto madaxweyne Soomaaliyeed Soomaaliya xog uma qaban kartid sababtoo ah Puntland oo 6 gobol xog qaba weeydi oo miday kar weeydi boosaaso waa ognahay kaashku waa ognahay meeshu marayo shacabka reer Puntland ognahay saa u gashay moogta markuu xaleena shacabka Soomaaliyeed ninkaasina wax lii qabanayo maaha inta xamar ku hadhay oo ku hore ka taga barona sii qaato markuu xaleena madaxweyne arrinkaas xub Soomaaliya uma qaban kartid Soomaalida wax dhala nin ariga ku aaminaa geeladin iskaga dhibta marka ninkan wax u qaban kara maaha nin ay u tartami karana maaha sharaxna shacabka xamar ha ogaadeen ninkaas uu yahay xawaan qabanin
haddaanu shacabka reer Puntland nahay wax noo qaban kari waayay oo kaashka waa ogtihiin oo meel kasta wax isla maraya ogtihiin oo sicib bararka oo shacabka inta kale uu dumiyay marka waxa leenahay aad baan waxa dadka uga deganay ninka doortaan wax iskaga dhiibaan fikirka laga dhiibto madaxweyne Deni iyo ninka la yiraahdo madaxweyne Farmaajo oran maayo madaxweyne Deni aniga lugahayga iyo gacmahayga ninkan ku waayay waxaan ahaa dadkii soo dhaweynayay waqtigii uu doorashada doonayay halka ka turtigayo ilaalinaya amniga sugayay ilaalinayay gaarigu la dhacay kuwii dhintayna dawada kama bixin kuwii dhintayna aaska kama bixin annagana dawadana kama bixin iska daa Farmaajo waa ninka qaadaya ninkii dhaawacma ama arrimo ku dhaawacda u qaadaya weeyaan Turkiga u qaadaya laba nin oo gudboon iyo laba nin saddex dhiga karo midna maaha ka waxaan leeyahay tan Ilaahay ka kaxayo toon Ilaahay u geyn baan leenahay tan Ilaahay ka kaxayo waayo lugahayga iyo gacmahayga wada aragsan biraha igu jira waxaan leeyahay $10 baa igu baxay $10 reerkayga isbalgareynayay waxba igu darsan maalin uma halin kuwii dhisayna sidii bay iyana aan waxba laga soo qaadin marka waxaan leenahay ka Ilaahay janna Puntland ka kaxayo taana Ilaahay uu gaarsiin baan leenahay hadii aanu karaamo leenahay saasaan leenahay bal yiraahdaa anigu waxaan ahay nin khibrad u leh dawladaha ama madaxweynaha tii hore waa la soo shaqeeyay kuwa yar yar oo biqbiqlana waa la soo shaqeeyo waa dhex jooga lambarka horta qodobka koowaad waxaan halkan ka cadaynayaa oo leeyahay anigu dad u sheegayaa adduunka ama ninka maqlaya ama ummadda Soomaaliyeed horta ninka Deni la yiraahdo waa waxa weeye xidiga saxalka la yiraahdo oo hartiga dul fadhiya waa qodob xidigu hadduu sax dul fadhiisto beesiga uu dul fadhiisto waa dhamaada saxal baa leeyahay waa saxalka dul fadhiya maamulka Puntland siiba waa baabiyaha iyo kala durkiyaha hartiga intaas waa qodob waxaan leeyahay taageersanahay madaxweynaha qaranka Farmaajo ha guulaysto wixii hore soo qabtayna waa loo yahay wixii dambena uu qaban doonaa siyaasad dawladeed buu leeyahay marka dawladaha soo xusuus ilaahay tawfiiqda teeda sanasolosi ilaahay tawfiiqda teeda sanasolosi ilaahay beena kadaabka iyo liciinka iyo jawaasiista ilaahu naga qabo ilaahay beena kadaabiinta naga qabo waxaan halka ka cadaynayaa la isugu yimi madashatan ee mudane iyo burwooyinba ay hoganayaan oo aaraahda isweydiinta laga duubayo waxaan cadaynayaa ninka la yiraahdo Deni ee hadda musharaxnimadiisa ku dhawaaqay inaanu dal iyo diin iyo dad midna daacad u ahayn inuu yahay beenaale kadaaba baan cadaynayaa inuu Puntland hog ku soo riday baan cadaynayaa waxa loo hayaa 20 dambi oo kala jaado midba mid ka xun yahay baarlamaanka waxaan ka codsanayaa ninka dambiilaha ee ismadiisii iyo culimadiisii iyo eheladiisiiba ay ka dhaarteen inaanay dabagelin beeshii daacad ah oo dalka wax u taraysa inay dabagalaan baan baarlamaanka ka codsanaya waxaan u sheegayaa ummadda dalkeenna kan macaan waa lagu soo duulay dalkeenna macaan waa lagu soo duulay dalkeennu waa dal dihin waa dal nin waliba danaynaya Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo Carab intuba waa danaynaysa waxay leeyahay dalkeennu cadow badan oo uu ka yahay Deni cadow badan oo uu ka yahay Deni ninka labaadna uu yahay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo cirka laga soo tuuray Soomaaliya u dhalan Soomaaliya uma dhalan cirka laga soo tuuray waa jawaasiis xun weeye waa beena kadaab xun waa liciin xun waa kuwa shaydaanku rafiiqa la yahay shaydaan waa kuwa shaydaanku rafiiqa la yahay
shaydaan baa rafiiq la ah waa ehlu shaydaan waxay u shaqeeyaan yuhuud iyo carab bay u shaqeeyaan uma shaqeeyaan Soomaaliya waxa la rabaa in la iibiyo saa loo kala goosto war ninka Kenya oo maalin walba ina rushaynaysa hoosta kaga jiro maalin walba ka soo qaadanaya warbixin iyo lacag ka soo qaadanaya Soomaaliya muxuu yahay waxba uma aha xafidullah waxa leeyahay ninka waxa soo qabtay madaxweynayaal badan baa soo maray madaxweynayaasha wax lagu diirsado ninka ma ahay nin muujiye ma jiro waxaan u leenahay oo baarlamaanka u sheegaynaa anagu awood ma lihin oo cod ma lihin baarlamaanka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa oo naar ha ku galina ummadda Soomaalida inta faraleeg naar ha ku galina oo meeshii u dana gala oo waa aragtaan meeshii u dana nala caqli baatin oo dadka ka soo dhaxbaxdeen oo warka maqlaysaan oo wax kasta maqlaysaan oo Facebook-ga ku jirtaan oo dhalooyinka ku jirtaan oo waa maqlaysaan adduunka waxa ka dhacaya iyo sida ay tahay waxaan idin leeyahay oo idinku boorinaya oo idinka codsanaya naar iska ilaaliya Soomaaliya naarka ilaaliya Soomaaliya haddii uu farmaajo ka tago Soomaaliya waa dhimatay waa serious waa dhimatay waa tagtay kuma taqaawada maatay farmaajo hadduu ku soo noqdo guul iyo barwaaqo la gaaraya baarlamaanka waxa leeyahay ilaah ka baqa farmaajo noo soo saara oo shacabka iyo dalka u soo saara Soomaalidu waxa tirada horta niyo wartiisa daryeelaa tu kale ku daree horta wax badan baa la tabanayaayo bulan tabanaysaa waxyaalo badan ay bulan tabanaysaa horta inaad dhamaystirto marka bacdigana sii gudubto tan marka daryeesho tu kale gudbi kartaa marka hadalka waxaan ku soo ururinayaa Soomaalidu waxa tirahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan meesha aad joogto horta inaad maxaan ku dhahday wanaajiso wax kasta qurux badan tahay